asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada Alnoor Academy. Waxaan qaadanaynaa pronouns magacyaalo. Waa maxay pronoun? Waa maxay magacyaal? A pronoun is a word that takes the place of a common noun or a proper noun. A pronoun magacyaalka is a word waa eray that takes kaas oo ka dhacayo the place of a common noun booskii magac guud waay or a proper noun ama magac gooni ah ama magac qaas ah. There are different kinds of pronouns. Waxaana jira noocyo kala duwan oo magacyaalo ayaa jiro. Waxaan ku bilaabaynaa personal pronouns, magacyaalada dadku ay leeyihiin amabase shakhsiyadda ka hadlayo. The words are you, he, she, it, we and they are called personal pronouns. 7 pronouns haddaad maqashay ama 7 magacyaal oo ah I aniga, you adiga ama idinka, he isaga, she ayada, it shayga ama xayawaanka, we annaga and they iyo ayaga are called waxaa la dhahaa personal pronouns, magacyaalada shakhsiyadda dadka ka hadla ama magacyaalada qofka si toos ah u tilmaama. They take the place of nouns. Waxay ka dhacaan booskii magaca ayay qaataan ama ay ka dhacaan. And they are used as the subject of the verb in a sentence. And are used waxaa loo isticmaalaa as the subject sida sameeyaha of the verb ficilka in a sentence ee jumlad. Examples, here are examples. Waa tusaalooyin. My name is David. Magacay waxaa la yidhahdaa David. I'm the youngest in the family. Waxaan ahay midka qoyska ugu yar ayaan ahay. So ayadan waxay u taagan tahay David ayay u taagan tahay pronoun waay waana personal pronoun waay. This is my father. Kani waa aabahayga. He's a teacher. Waa macalin. He is a personal pronoun. Waxay u taagan tahay my father. This is my mother. Tani waa hooyaday. She's a lawyer. Ayada waa abukaate ama qareenad waay. Waxayna u taagan tahay she-dani waa pronoun. Waxayna u taagan tahay my mother. Waana personal pronoun. I have a brother and 2 sisters. Waxaan haystaa 2 wiil iyo 2 gabdhood. Waa walaal oo hal wiil ah iyo 2 gabdhood oo la dhalatay. They are Peter, Sharon and Jenny. Waa Peter, Sharon iyo Jenny. Marka dayda waxay u taagan tahay 3 walaalood ee qofkan la dhalatay ayay u taagan tahay. I have a dog. Ayaan haystaa. It is called Lucky. Lucky ayaa la lahaa. So idda waxay u taagan tahay dogga, eyga ayay u taagan tahay. Luckyo, you are a good dog. Adiga waxaad tahay ey wanaagsan. You waxay u taagan tahay Lucky. Good morning, subax wanaagsan children, caruurey. You may sit down now. Hadda waad fadhiisan kartaan. You waxay u taagan tahay children, waana personal pronoun. My family and I live in a big city. Aniga qoyskayga waxaan ku noolnahay magaalo weyn. I waxa waaye waa personal pronoun. We have an apartment. Qayb ama wax oo dhan ayaan deganahay ama qayb oo apartment means waa qayb guriga dabaqa oo kale ama guryaha caadiga oo 3 qol iyo waxyaabahaas ka kooban ama qayb oo isku go-an wa. So wedan waxay u taagan tahay my family and I isku darsamay aniga qoyskayga ay markay isku darsamaan ayaa waxa la yiraahdaa we. The subject of a sentence is the person, animal, place or thing that does the action shown by the verb. The subject of a sentence sameeyaha jumladda is the person waa qofka, animal shayga, place goobta or think an animal xayawaanka, place goobta or think ama shayga that does the action kaas oo falka sameynaya shown by the verb oo ficilka uu muujiyo markaasi. Waa hagaag. The words me, you, him, her, it, us and them are also personal pronouns. They also take the place of nouns. These pronouns are used as the object of the verb in a sentence. Kuwan waxaa lahaa objective case lahaa lagu sameeyaal waaye. Jumlada kama bilowdaan way u dambeynayaan markasto. Laakiin 7 pronounskii waaye. Me oo I ah, you oo you ah, him oo he ah, her oo she ah, it
oo it ah, us oo we ah, and them oo they ah. Also personal pronouns waa personal pronouns waa magacyaalada shakhsiyadda ka hadla. They also took the place of nouns. Waxay ka dhacaan ama ay qaataan booskii magaca. These pronouns magacyaaladani are used waxaa loo isticmaalaa as the object of the verb and lagu sameeyaa ficilka in a sentence ee jumlad. Waan arki doonaa ayagoo jumlad u dambeeyo. Look at this example. I'm standing on my head. Madaxaygaan ku istaagay ama madaxaygaan ku taaganay. Look at me ifeeri. Marka miidani waxaa waaye I tusaale I jumladda inaa u dambeyso waa qalad. Marka miya u dambeysinaysaa. My mother is kind. Hooyaday way naxariis badan tahay. Everybody likes her. Qof kastana wuu jecel yahay. So her iyo me waa personal pronouns but objective waa kuwan ama an objective case waa object waa adiga lagu sameeyaal waa. Lisa I told you waxaan kuu sheegay to tidy your bed inaan nadiifido sariirtaada. Sharon iyo Jenny dad is waiting for you. Aabe wuu idin sugayaa. Lucky and I aniyo Lucky are playing in the back. Waxaan ku ciyaaraynaa qaybta baaga ama qaybta dalxiiska. Dad aabe is watching us wuuna daawanayaa. You must not play with the knife. Waa inaadan tooreyda ku ciyaarin. Give it to me ani isii. So it iyo me waa pronouns weliba personal pronouns oo haddana objective case ah. Pick up your toys and put them away. Pick up qaado your toys boombaladaada iyo alaabtaada aad ku ciyaarto and put them away. Waxaa waaye halkaa iga geey waa iga fogey waa macnaha. Wagaag. So let's look at here below. Baby birds cannot fly. Mother bird has to feed them. Baby birds caruurta shimbirta cannot fly ma duuli karaan. Mother bird hooyada shimbirta has to feed them waa inay quudisaa. Tom likes riding my bicycle. Tom wuxuu jecel yahay inuu saarnaado ama uu fuulo baaskiilkayga. I sometimes lend it to him. Mararka qaar waan tabaleeyaa ama waan deemiyaa waan siiyaa. The object of a sentence is the person, animal, place or thing that receives the action shown by the verb. The object of a sentence lagu sameeyaha jumladda is the person, animal, place or thing waa qofka, xayawaanka, goobta ama shayga that receives the action oo falka ku dhacaya shown by oo uu muujiyo the verb ficilka. Okay, there are three groups of pronouns: first person, second person and third person. Waxaa jirto saddex koox oo magacyaalo ayaa jirto. First person waa qofka koobaad oo ah I iyo we ah. Second person waa qofka labaad oo ah you ah. And third person waa qofka saddexaad oo ah she, he, it iyo they intaba la isku yiraahdo. The first person or the person speaking is called the first person. Qofka marka hadlayo waxaa lahaa first person Allah. The first person pronouns are I or me waay singular ahaan markay yihiin. And marka singular laga hadlayo I iyo me waay, laakiin plural marka laga hadlayo we iyo us waay. Marka I iyo me waa laba kala faracantay, midna waa subjective midna waa objective waay. Laakiin in singular waa markay hal ahaan loo fiirinayo, mufrad ahaan markii loo fiirinayo. And we or us in the plural, laakiin we iyo us ayaan dhahaynaa markay ay yihiin jamac markay yihiin. The person spoken to is called the second person. Qofka lala hadlaayana waxaa lahaa second person ala. The second person pronoun is you in both singular and plural. Qofka labaad markii laga hadlaayo you waaye markuu jamac la yahay iyo weliba markuu jamac yahay labadaba. The person or animal or thing is spoken about is called the third person. Qofka shayga xayawaanka ama qofka aan amaan dhahag shayga oo laga hadlaayo oo laga hadlaayo oo isaga wax laga sheegayo ayaa waxaa la third person. The third person pronouns are he or him, she or her, it in singular and they or them in the plural. Markay hal yihiin waa he iyo oo him iyo subjective iyo objective, she iyo her oo saasa, it oo markaasi hal ah. Hadday badan yihiin waa they ama them waay. Absolutely. Waa la fahmi karaa. The word I is always spelled with the capital letter. I markastoo la qoraayo capital ahaan ayaa loo qorayaa. The pronoun he is used for men and boys, she for women and girls, and it for things and animals. Waxaa lagu dhahay he waxaa loo isticmaalaa ragga, nimanka waaweyn,
iyo weliba wiilasha. Shin waxaa loo isticmaalaa dumarka waaweyn iyo gabdhaha. Idna waxaa loo isticmaalaa things and animals, sheeyaasha iyo xayawaanada. He has a table to help you. Shahankani waa ku caawinaya. First person singular I me y, second person singular you y. macnaha you maxaa laga wadaa you then subjecteeda iyo objecteeda isla mid ah, laakiin I me noqotaa laga wadaa. Third person singular he him y, she her y, it y. First person plural we us y, second person plural you y, and third person plural they them y. waa hagaag, waa la fahmi karaa absolutely. waxaa jira kooleer reflexive pronouns. Reflexive pronouns waxaa la yidhaahdaa magacyaalka ka hadla qofka nafsadiisa ama sheyga nafsadiisa marka uu wax sameeyo, wax aday reflect kugu soo noqona. The word is myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves are called reflexive pronouns. erayadan oo ah myself nafsadeeda, yourself nafsadaada, nafsadeena, himself nafsadiisa, herself nafsadeeda, itself sheyga ama xayawaanka nafsadiisa, ourselves nafsadaheena, yourselves nafsadaheena, and themselves nafsadahooda are called kuwana la reflexive pronoun. They refer to the person. They refer waxay muujiyaan to the person qofka animal ama xayawaanka. That is the subject of the verb oo ah sameeyaha falka. I made this cake myself. I made one samay this cake and cake gani ama doolashadan myself nafsadeeda ayaan samay. Aniga ayaan samay. Be careful with the knife, you will cut yourself. Be careful, iska ilaali with the knife tooreeda, you will cut yourself, nafsadaada ayaad jari doonta, waa isku sari doontaa macna. Okay, and Michelle is looking at himself in the mirror. Michelle wuxuu isku fiirinayaa muraayada and isaga ayaan is arkay. Susan has hurt herself. Susan ayada ayaa is dhaawacday. Our cat washes itself after each meal. yaanyuurteena ayada as dhaqayso kadib markay cunto, markastoo ay wax cunto, each meal cunto walaba kadib. We organized the party all by ourselves, and xafladda waan agaasinay ama waan abaabulnay annaga keligeena leewa. Come in children, caruuray soo gala, and find yourselves a seat, nafsadiina fadhi u hela. Baby birds are too young to look after themselves. shimbirta waxaa waay caruurteeda aad bay u yaryar yihiin oo ma awoodaan inay isdaryeelaan ayaga. Okay, here is a table to remind you about reflexive pronouns. Reflexive pronouns-kan wuxuu ku xasuusinayaa ama ku barayaa qaabka uu shaqeeyo. First person I, me, myself ay noqotaa. We, us, ourselves ay noqotaa. You, yourself ay noqotaa markay second person tahay. You, yourselves plural markay tahay. He, him, way fudfudiin kuwani. No more. ma adka runtii. waa hagaag. waxaan baranaynaa waxaa loo yaqaano interrogative pronouns, magacyaalada interrogative-ka ama kuwa su-aasha sameeya sida loo yaqaano. The words who, whom, who is, what, and which are called interrogative pronouns. magacyaaladan who iyo whom isku mid waa. yaa waaya la, who is yaa iska leh, what maxaa, and which iyo kee are called kuwan ayaa waxaa la yidhahdaa interrogative pronouns, magacyaalada su-aasha. These pronouns are used to ask questions. waxaa loo isticmaalaa sidooda banaanba in loo isticmaalo. waxaa loo isticmaalaa in dadka su-aal lagu weydiiyo. Who ka hadal marka iyada. Who is he talking to? isaga yuu la hadlayaa. Who are those people? dadkaas yay yihiin. Whom waa la mid waa marka. Whom are you playing with? yaad la ciyaaraysaa. Whom is he talking to? yuu la hadlaya isaga. Okay, which waxaa loo isticmaalaa inta badan sheeyaasha loo isticmaalaa. Which of these bags is yours? boorsooyinkan tee taadi ah. And which do you prefer? tee dooranaysa adiga. Who is waxaa loo isticmaalaa possessive way waay lahaansho waay. Who is this umbrella? yaa iskale daladani. Who is are these gloves? glovesadan yaa iskale ama gacmo gashigan. What waa maxaa oo kale. What is your dog's name? eega magaciisa maxaa la. What are you talking about? maxaad ka hadlaysaa? What is the time meeqa saac waay. Who can be used as the object of a verb as well as the subject. Subjectna waa la dhihi karaa, objectna waa la dhihi karaa. Whom is used only as the object. For example, you can say who are you playing with. ayada object ahaan loo isticmaali karaa. Or mise whom are you playing with. inta baa loo isticmaali karaa. waa hagaag. Very simple really.
haddana waxaan ka hadlaynaa waxaa loo yaqaano demonstrative pronouns magacyaalada wax tilmaama. The word is this, that, and those are called demonstrative pronouns. They are showing words. These are goats. What those are goats. Kuwaasi waa ari. laakiin hoos markay kasoo gasho maxaa leedahay these are sheep. kuwani waa ido. idaha jamcooda iyo singularka isku mid waa iska ilaali. That is John's house. kaasi waa John gurigiisa. That is a mountain. taasi waa buur waa. Those are horses. kuwaasi waa fardo. What are those? kuwaasi waa maxay? We can do better than that. saasi ka doonayaan u qaban karna. No, that is not mine. maya taasi taydi maya. You mean you won. waxaa ka wadaa waa guulaystay. Okay, you mean you won. That is amazing. taasi waa cajiib waa. And hello, who is that? yaa way ninkaas. Speaking please. oo hadlaya qofkaas yaa way. Hello, is that teacher? kaa George miya adi miya ay ka dhigan tahay. dhinac kale waxaa ku qoran this is my house. kani waa gurigeyga. This is a hill. kani waa tag. And these are donkeys. kuwani waa dameero. What is this? waa maxay kan? Did you drop this time? yaa tuurtay? Hi Jane, this is Mitchell. tani waa Mitchell ama waa Mitchell. You use this and this when you pointed to things near you. This iyo this waxaan isticmaalayna markaad ka hadlayso ama aad tilmaamayso sheeyaal adi kugu dhow ama kuu dhow. You use that and those when you pointed to things farther away. Those iyo that waxaa isticmaalaysa sheeyaal kaa fog marka aad sheegayso. Demonstrative pronouns can be singular or plural. laakiin demonstrative pronounka waxay leeyihiin jamac iyo waxay leeyihiin hal ayay leeyihiin. This, that, these, those. marka this and that waa singular. kan iyo kaas waay. These and those na waa plural. kuwaas iyo kuwan waay. waa hagaag. So it's very easy. Okay, and thank you very much for your good listening of this lesson. intaan kulmi doono casharka soo socdo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan kaloo aan kaa raali gelinayaa boobsiiska aan boobsiyay because waxaan diidaya videoga inuu aad u dheeraado. intaan kulmi doono cashar kale waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.